بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنت وأنا وناكسر مع وداش ذا قيمة قدرت وشمت نجم ضنوها كني وتلفزيون كعالمي الصومالي نيوز حروتي سمجال هذا بورما كسر والله تعود البرنامج حلك حصة تضباطك وهبين قصص بسوق السكت دعوتان تلفزيون كعالمي الصومالي نيوز برنامج شابك نعوى عن كسر قادم دونا دعوين كيس حيو قدام بيك دعي مجال هذا بورما حرته قبل كوضل إنتو سعيد كوب كقبل هذا الصومالي لقيت لو قبت مجال هذا بورما كوب كاسويتو سعيد صوبي خسارة سكوت ردمشية دعوة barnaamijku waxaynu ku falanqayn doonaa hadallada kala duwan iyo dareenada kala duwan ay ka celiyeen dhalinyarada magaalada Boorama xisbiyada mucaaradka waliba xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Boorama hadduu eebaha wadada barnaamijku waxa la socodsiin doonaa habeenkan cawaaniga Mustafa Caraale ugu ku hormarno dhacdadii maalintii Axad toddobaadkii hore ka dhacday garoonka Cashdari Stadium ee magaalada Boorama ciyaar dhex maraysa labada gobol ee Muradjeex iyo Awdal halkaas oo ciidamada Aryuud wax badan nolol ku fureen shacabkii daawanayay ciyaartaasi markii dhacdadaasi ka dhacday garoonka Cashdari Stadium ee magaalada Boorama halkaas oo ku geeriyooday wiil dhalinyaro ah oo kamid ah dadweynaha daawanayay ciyaartaasi ayaa waxa ka hadlay dhacdadaasi qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Boorama kuwaas oo ku tilmaamay mashruuciga ka fog isla markaana waxshnimo ku ah ciidamada Aryuud waxana ay cambaariyeen xabadaha nool ee ciidamada ay kula kiceen shacabkii daawanayay ciyaartaasi haddaba haynu wada daawano warbixin Khadar Maxamed Xasan Labaqay noogu diyaariyay dhacdadaasi maalintii Axad toddobaadkii hore kamid xildhibaanada golaha deegaanka degmada Boorama oo kamid yahay gudoomiye ku-xigeenkii golaha deegaanka ee degmada Boorama Maxamed Faarax iyo xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka ee degmada Boorama oo goobjoog u ahaa rabshadii ka dhacay garoonka kubadda cagta ee Xaaji Daayir oo cilmi ducaale magaaladani Boorama oo ku dhintay wiil dhalinyaro ah oo lagu magacaabo Xamse Maxamuud ayaa ku eedeeyay ciidamada Aryuud ee ka amar qaata in Axmed Tiir oo si badheer rabshada xabad oo kaga qaaday shacabkii daawanayay ciyaarta xildhibaanadani oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxay sheegeen inta ka sako waxaan maanta goobjoog ka ahaa wixii dhacay waxa ilaahay ii joojiyay iyada oo wax rabshada iyo wax buuqa oo garoonka ka socda ayna jirin taageerada reer Boorama kooxdooda ay taageerayeen magacooda ku ciyaaraysay in rasaas lagu kiciyay ka joog markaan ku ilina aniga ay qabsatay laftarkayga oo qori leeyla soo orday taliyaha iyo cidii maamulanaysay arrinkaasi markaan u sheegayna waxa la wax jawaab oo ay ka bixiyeen inaysan jirin marka waxaan leenahay bulshadan cidda ka mas'uula ma garanayno cidda u talisana ma garanayno haddii ma garanaysa ay tahay dawladnimadu noocan waxaan u malaynayaa halka inayna wax magacii dawladnimo la yiraahdo ka jirin ciidan amniga ilaalinaya oo shacabkii firfadhiyay ee taageerada iyo shacabkooda garaacanayay rasaas ku kicinaya maanta ka hor maanu arag halkay ka timid ay amarkaas halku ka soo baxayna waxaan u baahanahay mas'uuliyiinta hawshaasi waday halkay ka keeneen وحسن شعبنا الربورة ما هلك فرحت كجبي حلاهين أي كبي جرانك يو جماعة ساوتاجي ولا حبدنا قدايا أرن كاسي أرن هودو قادن كرماها ماشي أنا قرية لو مسميسن إن شعب أنا قرية هيسن لا دعو قرية واحد لو سمست عدو إن لا دعو هديد كان قرية هيسن عدو يهين waxay noqon doonaan iyo qorisiti cadow noqon doonaan dadkaas waxaan leeyahay mas'uuliyadda kii hore iyo kan dambaba ciidan u daba fariisano wasaaradda dakhiliga iyo wasaaradda amnigu si degdeg ah ugu soo jawaabta shacabka raawda hadii arrinkaasi dhici weydo wallahi wala naasnaasin oo billahi wala naasnaasin oo talaa wala naasnaasin wax xaraan waxa soo kale waxashnimada waxa weeye niman cadaysan oo magacooda Aryuud lagu sheego waxaan si xasuuqa oo la kaca xabada laabta uga dhacaya siday xildhibaanadu hore ka dhawaajiyeen aad baan u la qabnaa cod dheer baan ku sheegaynaa gacanta ka laaban mayno indhahana ka laaban mayno ma si daawan doono wax la noqbali karnaa ma dhinaca wax iyaguna cambaarayay dhacdadii ka dhacday garoonka Cashdari Stadium ee magaalada Boorama ciidamada Aryuud kula kiceen shacabkii halkaas daawanayay qaar ka mid ah dhalinyarada magaalada Boorama kuwaas oo si dareen cadaya qeyr ku jirta uga hadlay dhacdadii ciidamada Aryuud ka geystay garoonka Cashdari Stadium ee magaalada Boorama waxaana ka mid ah hadaladoodii haddii aan wax ka taabto ciyaarihii lagu qabtay gobolkan Awdal
iyo waxyaabihii ka dhacay horta ma ahayn wax ku tusaya humaag fiican wuxuu ahaa wax ayaan darro ah ayaa ka dhacay meesha ciyaarihii waxa la islahaa si nabad leh ayay ku dhacayaan habase ahaatee ciyaaro kolka la qabanayo waxaa la higsan karaa inay si amniya ku qabsadaan oo dadkii loo tirinayay inay amniga hagaajiyaan oo iyaga lagu daba dhuunto oo ahaa ciidanka RRU-da oo ay dugsadaan ciyaartooy iyo shacbiba ayaa waxa ay sameeyeen wax aad looga xumaado anigu odhan maayo ciyaartooyga ayaa khalkhal sameeyay ama shacabkii daawanayay ayaa khalkhal abuuray laakiin waxa khaladka iskale marka koowaad ciidamada amniga ciidamo amnina odhan maayo waa ciidan beeleed ciidanka RRU-da la yiraahdo waa ciidan beeleed waxay sameeyeen wax laga xumaado waxay qadar jabiyeen ubixii gobolkan oo ay ugu jawaabeen halkay taageero ka wadeen rasaas nool inay nafta kaga qaadaan oo maalinba nin qashaan marka waxaan leeyahay ka gobolkan ahaan nasiib darro weyn ayay u noqotay ciidan beeleedka ee la keenay gobolkan ahaan ee ugu jawaabay ciyaalkii taageerayaasha ahaa rasaasta nool inay ku laayaan marka waxaan leeyahay anigu ka Saleemaan ahaan ciyaarahaas wax noo wanaagsan annaga gobolka ahaan ma ahayn sanadkan waxay ahayd ayaamo madow oo na soo maray ayay ahaayeen waxaana leeyahay Awdal ciyaar dambe iyo ma aragtaanay meel hay joogaan raggaas hay isku taginaan leh haddii aan ka hadlo ciyaarihii run ahaantii marka la eego ciyaar kama dhicin gobolka Awdal ama magaalada Boorama wixii lagu qabtay ciyaar laguma sheegi karo waxay ahaayeen ciyaar siyaasadaysan oo ku jirto Argos waxa dhacday maalintii Arbacadii shalay in dil ka dhaco gobolka oo laba nin oo ay ku dhintaan ilaalinaysa guriga barasaabka ka bacdi waxa dhacday in loogu argudo ciyaal yar oo aan waxba galabsan aan dhagax tuurayn aan qorisanin xabad lala dhaco madax lagala dhaco marka waxaan arkay ciyaar kama ay dhicin gobolka halkii laga sugayo kubad in la ciyaaro kaariya beebeba ciyaari baromba lagu laayay carruurta taas aan leeyahay waan ka tacsiyeynaa intii ku dhimatay samriye iimaan Allah ka siiyay ehelkii qaraabadii niyo wanagu ma aragno hadaan nahay dhalinyartii gobolka in ciyaartaasi ay tahay ciyaar maanta gobolka si wanaagsan lagu ciyaar laakiin ciyaar waxay ahayd annagana loogu tala galayna laga aargoosto Soomaaliland kama dhicin ciyaar noocaas oo kaliya halka ayada waxaan leeyahay xukuumaddu ay ku fashilantay ciyaartu waxay leedahay marka la ciyaarayo ama xamaasada laato ama dad is haya ku dhex jiraan qaabab loo isticmaalay leedahay qaababkaas oo kala ah qoryaha jira rash ah qoryaha jira wax baaskooda biyaha jira farsamooyin fara badan baa jira waxaas oo dhan ay quseeyaan wasiirka ciyaaraha quseeyaan taana ma hayno wasiirka ciyaaruhu xataa iska daa wax kale oo muu oran in waa ninkii matalay ciyaartan magaceega sitee dadkii ku dhintay oo muu tacsiir ma oran xataa tacsiir muu dirin xataa tirayaan mid lagama hayo loogu tala galay oo mishila yaa horta anagu tala aaminsan haddaan nahay dhalinyarta gobolka ciidanka RRU ee horta nin walba Ilaahay wax ka orani ninkii cadaalad darro sameeyay cadaalad darrada uu helaa annaga taayna naga faa'iideen haddaan nahay dhalinyarta gobolka yaanu aaminsannahay inta maanta naga dhimatay ee ku dhimatay qosol inta u dhiman doonta iyanu qiyaasi doonaa markaas inuu ka wada hadal doonaa isku iman doonaa haddii Allah awood leeyahay waxa nasiib darraa in xaradii lagu ciyaarey kubadda laga dhigay xirmo military oo lagu dagaalamay waliba khaasatan ciidanka RRU waxay la yimaadeen meeshaas foodo iyo dagaal marka waxa weeyaan gobol ama degmo lagu qabanayo ciyaaraha wuxuu amnigu khuseeyaa ciidanka gobolka ama degmada jooga laakiin waa khalad in ciidan RRU oo loogu tababaray in la dagaalamaan argagixisho ama wax kale loo tababaray inay inta yimaadaan garoon ay dhalinyaradii ciyaaraysay iyo kuwii daawanayay argagax galiyaan oo hub waaweyn u adeegsadaan arrintaas waa arrin nasiib darro weeyaan waxaan aaminsanahay anigu wixii halkaa ka dhacay waxa mas'uuliyadda qaadi doona ciidanka RRU waxaan runtii aan u sheegayaa madaxda RRU-da iyo madaxweynahaba arrintaas inay ahayd arrin fooxishnimo oo foolxumadeeda leh
runtiina dee aan la iskaga hadhayn way dhii qof wiil yar oo lagu soo tabcay oo waalidkiisii ku soo tabcay oo haddana dhayar lagu toogto oo lagu dilaa waxay noqonaysaa waxaan la isaga hadhi doonin annagoo ahaantii waxaan aaminsanahay reer burco way soo yeeyeen aaraadiyuda waxay u soo yeeyeen waxa weeyaan dhallinyaradooda waxay u adkaysan waayeen markii xabadda lala dhacay haddaan reer boorama nahay aaraadiyuda ma ogolin ciyaartan garoonka biroole ka dhacday ee garoonka boorama xaajdaar stadium ma ahayn ciyaar laakiin waxay ahayd nolol quurwaagii markii hore gobolka lagu hayay oo maantana ka bilaabma dhankii ciyaaraha iyo dhalinyarada dhexdeedii awal siyaasadda loo quuri lahaa maanta dhankii ciyaaray gaadhay markaan waxa la ku xumayn sumcadda gobolka ah oo la rabay in lagu qaban karo ciyaaraha ayaaba ahayd subaxnimadii xigtay isniinta toddobaadkii hore ayaa waxaa magaalada boorama ka dhacay mudaharaad rabshado wato lagaga soo horjeeday dhacdadii ka dhacday garoonka xaajdaar stadium ee ciidamada aarayuda loo yaqaano ee xabado noolno la dhaceen shacabkii halkaasi daawanaya ciyaartii dhex martay labada gobol ee Maroodijeex iyo Awdal halkaas oo ku dhintay wiil aad u da'yar kuna dhaawacmeen 3-4 qof oo kale wanaagoosan ay isku soo baxay wadooyinka halbowlaha oo suuqa magaalada boorama waxaana dhalinyaro calaysan ay dab qabadsiiyeen guriga magaalada boorama ka degan yahay taliyaha qaybta gobolka Awdal geesta kale gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani ee gobolka Awdal Cabdikariim Muuse Maal ayaa isaguna wax lagu xumaado ku tilmaamay dhacdadii toddobaadkii hore ka dhacday garoonka xaajdaar stadium magaalada boorama waxaana uu gudoomiyuhu xusay in ciidamada aaruyada ay geysteen faldambiyada aad u weyn isagoo gudoomiyuhu ka hadlaya dhacdadaasi ka dhacday garoonka xaajdaar stadium magaalada boorama toddobaadkii hore ayaa waxa gudoomiyahana hadaladiisa ka mid ahaa waxaan jecelahay runtii inaan ka hadlo yaa mas'uul ka ahaa ka dambeeyay falkii foosha xumaaya ka dhacay garoonka xaajdaar ee magaalada boorama ee da'yarta iyo ubaxa dalka xabadda nool la dhacay waxba yaan la agmarmarin hadalka waxba yaan laga meermeerin waxa mas'uuliyadda koowaad yeelanaya ee dhibaatadii halka ka dhacday taliyaha ciidamada aariyada عبد أحمد تيرني كلا مسؤولية كوبادي أنا ما دام وسقوا هي تليها عندك أريود أدب تاجيستي مسؤول له كهارنتي مسؤولية كوبادي كيلا يا تليها أريود يسقى أمر كبيحيل يقول لي لا يرتاح يسقى أنا لا حس إن لا حساب تورنتي هاي وحن آدي وحنا هاي وأنا أقبل إلى كريمين لما كان يعدي فلك جيستي إن لقول هذا والد كوب حوجي حبط على الرعاية ولا بجيريوت رنتي والدك المهم سيل دليل المهم هذا قفك دليل لما قرني لما راح يمرك الله يرحمه رنتي واحد لفتشب ينسقان فت هاي قرن بدأ إنه الشجع إنه رنتي وأنا ضعيف نمو وحنا الله هاي تليها عيدك أريده أمر كهذه بحي لقاني يلي ما يقرن ما يقرن تسقطه ست أخصاء ذكر كنتو شرعي قال غربا مسؤولية الوضع حيلانية برس صار قبل كأوضل فرديت كارنتي برنامج كلنا أو قبل كيسي وحاسو دلاتي كنعيسو لما تليه قيب اللي يشوفن تليه قيب قبل كأوضل الرجال أي هاي شرعيا إنه هوس ما تليه أريده وأن يسقونا تليه كلا أو لجوسو كربية قبل كقدوميها قبل كنا رنتي إسبربرية عائية مسماريش مكا إمام محمد قبل كتاجن قيب تقوين الساعة ما داموا هي مسؤول كوسر هي قبل كأوضل وحسنا كل مسؤولية صدحات يلانيا وسيرك أرمها جودها السوماليلان علي محمد وران عاطي ورنتي أي سوماليلان سبارتين على وران عاطي غير سوماليلان هذا سكمي يقول علي وران عاطي ما هنكرتي يقون يهفنان وقبض من نبلة وحنيك سوي سوماليلان سكوبرتين وسارة أرمها جودها أول وسارة كلو تشوك أسطرنا لكن وسارة دني وسارة هذه مهم قرن خنوا نبت جليدة يهبس من صعدك هؤلاء الدول اللي من رنتي لفرد بروا واحد غير سوماليلان على وران عدنا سكبرتين حكومة كل مياه سبرتي على وران عدنا وقفش المسارة داريمها جودها رنتي هدول سيراي حلة شعلي هي هقوم مجعب علي محمد وران عدي وسارة الدول شوكت هي حنانيت حولها أيوة هقوم مجعبه ما دام يسووا أو حكوا في عين وحرتي لي سويديني بالشدة هير بورما آدي سكويديني ما له دم بيدي بعطيه قال السوق تجنب قال هذا بورما أو ما يركيه ما يحكي تذكي دقمة الله صوت ضرطي هل كي كدم بيين runtii way gabeen kaalintii ay ku lahaayeen bulshada duqa degmada boorama waana nabaafinayna haddaan nahay shacabkii iyo siyaasiyiintii axsaabta mucaaradka gobolada galbeed maayarkii ma bixin kale ku dambeeyeen hal la baafiyo baan leenahay kamay hadal dhibaatada inta la ka dhacaysa kamay damqan may dajin xiisadii iyo xaaladii kacsaneed ka taagneed magaalada kamay qayb qaadeen roolkoogii runtii aad iyo aad u banaana way gabeen bulshadii soo dooratay codkooda ku fadhiyeen mana garanayo soo meesha sii joogo maamulka heer gobol iyo heer degmo ee gobolka Awdal iyo degmada boorama iyagu dhinacoogana ka hadal dhacdooyinkaasi ka dhacay garoonka xaajdaar stadium magaalada boorama xigay ee ku dhinteen labada wiilintii socday koobka gobolada Soomaaliya qaybta lagu qabtay magaalada boorama
barasaabka gobolka awdal maxamuud cali salebaan ramaax ayaan lagu argay warbaahinta intii koobkaasi socday khalad maxamed xasan labaqeyl ayaa markale inaga faaloonaya sida maamulka heer galbiye heer degmo ugu aamuseen dhacdadii ka dhacday garoonkaasi gudoomiyaha gobolka awdal ayaa warbaahinta lagu arag maalmihii xiisadaha rabshadaha wata ay ka taagnaayeen magaalada Boorama kuwaasi oo sababay khasaare naf iyo maalba leh hase haatee markii ugu horeysay uu la hadlo warbaahinta ka howlgasha gudaha magaalada Boorama ayaa waxa uu ka sharciyo cusub oo loo sameyn doono gaadiidka ka howlgala wadooyinka ku yaala magaalada Boorama ee xarunta gobolka awdal isu sababto oo koobka gobolada Soomaaliya qaybta lagu qabtay magaalada Boorama ka soo qayb galeen todobada gobol ee Salal awdal Murjeex Gabiley Hawd iyo Bohole isla markaana dhaliya khasaare isugu jira dhimashada dhaawac iyo maalwa ayaa waxa si rasmi loo soo gabagabeeyay maalinta Arbacada toddobaadkii hore iyadoo xaflad xiritaan lagu qabtay garoonka Xajdari Stadium magaalada Boorama hadda warbixin ku saabsan xafladda xiritaanka koobka gobolada Soomaaliya qaybta lagu qabtay magaalada Boorama ayaa waxa uu dhacday sida tan iyadoo maalmihii ugu dambeeyay magaalada Boorama xarunta gobolka awdal si habsami uga socdeen ciyaaraha gobolada Soomaaliya qaybta lagu qabanayay magaalada Boorama ayaa saaka waxa si rasmi loo soo gabagabeeyay ciyaarahaasi qaybta lagu qabanayay magaalada Boorama saaka subax waxa garoonka Xajdari Stadium magaalada Boorama ku kulmay kooxaha Salal iyo Saaxil iyo kooxaha Hawd iyo Bohole ciyaarta hore foodeystareen labada kooxood ku ciyaaray gobolada Saaxil iyo Salal oo ay ciyaaradu xiiso badan labada kooxood soo bandhigeen ciyaar wanaag ayaa waxa guusha halkaas ku raacday kooxdii ku ciyaaraysa gobolka Saaxil oo labiya hal ka badisay kooxdii ku ciyaaraysa gobolka Salal ciyaarta dambe ku kulmeen labada kooxood ku ciyaaray gobolada Hawd iyo Bohole ayaa waxa mid aad u xiiso badan weerarayay labada kooxood soo bandhigeen iyadoo ciyaarta qaybtii hore labada kooxood ismari waayeen balse qaybta dambe ciyaarta ay wax isbedel jawiga ciyaarta qaybtadii hore waxana ay labada kooxood halkaas ku soo bandhigeen ciyaar wanaag iyadoo labada kooxood isku dhaaf waayeen hal iyo hal barbara balse halkaas ay guusha ku raacday kooxdii ku ciyaaraysa gobolka Hawd oo ka dhibc badnay kooxda Bohole waxana halkaas ka soo baxay kooxdii ku ciyaaraysa gobolka Hawd todobada gobol ku ciyaarayay magaalada Boorama ayaa waxa group A ka soo baxay labada gobol ee Awdal iyo Hawd halka group B ka soo baxeen labada gobol ee Saaxil iyo Gabiley kadib markii soo afmareen ciyaarahaas dhex marayay gobolada Bohole iyo Hawd iyo gobolada Saaxil iyo Salal ayaa waxa garoonka gudihiisa lagu qabtay xafladda xiritaanka koobka qaybta lagu qabanayay magaalada Boorama waxaana xafladaasi ka soo qayb galay maamulka heer gabiye heer degmo wasiiro ganacsato iyo salaadiin waxaana halkaas ka hadlay maayirka degmada Boorama barasaabka gobolka Saaxil Fahmi Cabdi Bidaar oo ku hadlay afka barasaabada gobolada koobka lagu qabtay magaalada Boorama wasiirka xigeenka wasaaradda ciyaaraha wasiirka xaalada iyo xoolaha iyo wasiirka beeraha Soomaaliland waxaana ay dhamaantood uga mahadceliyeen maamulka gobolka Awdal ee degmada Boorama sida wanaagsan ay ugu soo dhaweeyeen gobolka Awdal iyo ciyaarihii wanaagsan ee ka qabsamay gobolka Awdal iyagoo geesta kale ka tacsiday labadii wiil ku dhintay garoonka Xajdari Stadium magaalada Boorama inta ay socdeen ciyaaraha gobolada galbeedka qaybta lagu qabtay magaalada Boorama mas'uuliyiinta halkaas ka hadlay waxa kamid ah hadaladoodii ka degma ahaan Boorama dhibaato wixii la soo gaadhay ee dadkayga soo gaadhay waan ka taxsadaynaynaa laakiin waxaan mahad Ilaahay ah in martidii noo timiday wax xigtayna ayna jirin taasi waa tu Ilaahay loogu mahadno waxaan bulshooyinka Soomaaliland u sheegaynaa intii aaminsaneen inay Boorama ciyaar ka dhici karin inay tahay ciyaarteedii soo gudubtay si nabadgelyo ay ku dhamaatay si wanaagsan ay ku dhamaatay waxaan leenahay weelka aan nagu lisnay ee nagu martigelino markaan nagu nimaadno nagu martigeliyo runtii ku hadlaya magaca barasaabada gobolada todobada gobol ee halkan ciyaaruhu ay ka socdeen waxaan barasaabka ugu mahadnaqayaa runtii sida weyn isaga iyo maayarka xildhibaanadii kale ee deegaanka dadweynuhu sida aad iyo aadka ay mataqaanaa martigelinta noogu sameeyeen siday noo hayeen siday noogu helanaayeen siday noo garab taagnaayeen aad iyo aad baan runtii aan ugu mahadnaqayaa waxaan leeyahay jazaakumullah runtii shaqada ciyaaruhu waxay ahayd hawl adag bay ahayd waxa aan tacsi u dirayaa eheladii iyo qaraabadii iyo asxaabtii dadkii ku naf waayey halkan afartii qof ilaahay waxaan uga baryaynaa ilaahay janneeyo labadii askari iyo labadii marka waxa u baahan ubaxii soo baxayay ee waddanka u soo baxayay ee barri waajibkooda qabsanay ee barri leadershipka sameynayay inuu taaladkoodii la aaso ama gacan lagu siin waayo waajib inagu maaha muddadii halkan la joogay waxaan aad iyo aad uga tacsiyadaynayaa dadkii ku waxyeelooba ku dhintay
dhammaanteenba gobol ahaan iyo dhammaanteenba somalilan iyo qaraabadii iyo ehelkii waalidiinta ay ka dhinteen isku soo waduba ciyaareen saaka la soo gabagabeeyay ayaa intay ka socdeen gudaha magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal waxay sababeen khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyadoo la wiil ku dhinteen garoonka Cajdar Stadium ee magaalada Boorame waad ku maasatay daawashada telefishinka caalamiga ee Somali News habeenka caawitaas ayaan ku soo gabagabeynaa daawadayaal barnaamijka xulka ee xiisaha toddobaadka kala socoteen telefishinka caalamiga ee Somali News habeenka caawa barnaamijka waxaanu ku soo qaadanay kula fakrnay dhacdooyinkii ka dhacay gobolka Awdal ee magaalada madaxda Boorame intuu socday koobka gobolada Soomaaliya qaybta lagu qabtay magaalada Boorame barnaamijku waxa la socodsiinayay isla markaa idin soo diyaariyay anigoo Mustafa Caraale waxa kaalin weyn ka qayb qaatay barnaamijka oo aan idin mahad celinaya agaasimaha gobolada galbeedka ee telefishinka caalamiga Somali News Khadar Maxamed Xasan Labaqayle intaan ku kulmi doono barnaamij xiga waa anigoo Mustafa Caraale ku dhaafay sidaas iyo is arag maqal dambe oo xiiso leh